nin maraykan cabo Mike Branch la waa nin sementiyadii islaamay waa nin weyn oo xanuunsanaya state kan joogay buu ku noolaa laakiin Texas buu guuray Indiana ayuu ahaa markuu islaamay Indiana state buu joogay sababtuu islaamay wiligiiso wuxuu maalin anoon isaan waxba ka aqoon ayuu baa waxaan ugu masaajkan gal طبعا marka samarka xilliga kulaylka dadku socks ma xidhaan tigarmaysid marka qofka saaba isagoo bila socks markuu soo weysiisto ayaa sidkii baa la tukanaya waxyaabo inaga aan inaga fikirsiin bay ka fikirsiiyaan waliba qofku ilaahay hanuun iyo xaqiiqo ula doonayo wuxuu markii saa loo rukuucay ayuu baa dadka caagahoogu mar eego left and right midig iyo bidix isagoo kala wada kala weeya bilcagtiisu madowdahay bilcagtiisu cadday bilcagtiisu brown tahay mid maxay ay tahay waan yaabin sababtu inaad garanaysaa sababtu uu yaabay wuxuu yaabay dadkan wada kala kalarka ah ee haddana the same worship place meelkii ku wada cibaadaysanayaan diinta waxa fartay waa diin sax ah sababtu leeyahay baan idin sheegay hadaba waxa weyn Sunday soo maalinta kristaanka adduunka dhan ma waa maalinta kaniisada tagaa soo ma waxa la yiraahdaa Mareykan maalinta ugu raysiisan badan maalinta ugu cunsuriyad badan Mareykan waa aroornimada subaxnimo sababtu aad garanaysaa qolo walba kaniisada tagta madow cadaanka lama tukado soo garmaysid in cadaanku Isbaanishka lama tukadaan Isbaanishku madow lama tukadaan qolo walba iyagoo ma garanaysaa isirkoodii iyo ethnic groupkoodii raacaya waxa weeyaan waxa darisaa kaniisada ay leeyihiin Greek kaniisada ay leeyihiin kristaanka carabtu kristaanka mid madow leeyahay mid Isbaanishku leeyahay mid cadaanku leeyahay wuxuu haddii kristaankii xaq sheeganayaan ku dhashay lagu soo koriyay aanu madowgii cadaankii aanu midayn karin oo kaniisadii cadaanka aanu madowgii aan loo ogoleyn diinta cadaankii iyo madowgii iyo yalowgii waxa doona ahaadaan isku wada keentay wadin sax sidoo ku islaamay lamaatan waa muslim ونحجي الحمد لله رب العالمين إلى خاتمة هو جعفر ناصر